jira marka halgan kay talaahana waxbaan ku leeyahay oo de ariga taladu way naga dhaxaysaa deegaan ahaana wuu naga dhaxeeyaa oo aniga de Hargeysa waxba ma wada lihiin laana waxaad garanaysaa inaad waxay madaxweynaha si aaminsan hudheeladayadu uu qaatay beerahayga uu qaatay dhulkayga uu qaatay wuxuuna aaminsan yahay inaanu nahay dad haddii aan leeyahay soo guurto kooyto timi Hargeysa laakiin garaadadu waxay og yihiin inaanu dhulka wada leenahay Soomaaliya sanaaga tog dheer ba inaanu wada leenahay garaad jaamac garaad cali oo shalay u dambeeyay wuxuu cadeeyay wuxuu warday dad baa nala leh ma ignore garaynayo dadkana waanu ka wada hadlaynaa marka anigu waxaan ka mid ahay dadka horeba ugala sii wada hadlay ya haddii Soomaaliland la waayana inaanu iyaga wax wada leenahay ya haddii la helana inaanu wax wada leenahay oo iyaga ma kala go'ay karo Hargeysa waan kala go'ay karaa laakiin saddexdan gobol xaafadahayga bay isku jira guriyahayga bay isku jira dhaqan wadaag baan nahay Soomaaliland oo kale waa iska sii xignay marka anigu waxaan ahay dadka fahansan halgan kana wax ku leh kana shaqeynay ya aniga rag kale oo fara badan ama media ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen halganka waxbaan ku leenahay ya waa tahay kan SSBG G36 wuxuu sameeyay markii aanu aragnay inay xukuumadda kaligeed ya hiil walaal iyo daalado dhan soo duulay aanay ku filayn inaanu anagu hantidayada hub gelino gaadiid gelino isbarbar taagno dadka sheekeynaya leeyahay waxaanu ka furaynaa Hargeysa iyo meelaha kale aanu jabhada ka furaynaana waxaan leenahay qaranku difaac u baahan yahay hadaa difaacaysan kaalay anagu taayada dawladda ku wareejinayna hadaa dagaalamaysan oo dalka difaacaysaan hadaa siyaasad wada hadal keenaysaan oo fiican aan ka wada hadlayna laakiin inuu Hargeysa ka hadlo aan ogeyn dhibaatada ay haysata oo shalayto inta ceerigaabo iyo burco iyo meel walba layga saaray aan walaaltinimo ogolaaday aan hantidaydii ka hadlin layga dhacay maantana inta lay dilay oo dagaalkii Hargeysa layga bilaabay ceerigaabo iyo boodley iyo boqdarkayn iyo meel walba layga barakiciyay maanta aan u soo diyaar garoobay inaan dhulkayga nimanka tolka aanu nahay mar haday xabada caaradeeda ka fursan weyday in la isku difaaco ma jeclin ma hayno beela daarood oo ilaa boqorkii daarood birgii la sacanayso waan la hadlay boqor burhaan waxaan ku waxbaad ka qaban kartaa dagaalku intaan halka dhoofin wafti soo kaxayso Hargeysa kadib wixii taa ka dhalo daarood leeyahay inta la haysto nabad ka shaqeyn maayo annagana waxaanu leenahay taako aanu leenahay inta lagu soo duulayo loo leeyahay calan aanan ogolayn iyo tala aanan ogolayn keenay madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladana waxaan leenahay raalli naga ahaada nabad ka ogolin maalinta nabadgelyada ogolaadaan bedelaan luqadan ay ku hadleen xalay go'aan culus baa ka dhacay laascaanood ay garaadadii iyo hogaamiyihii iyo ragiisii bay ku ballan qaadeen inay u diyaarsan yihiin oo haystaan wixii ay ku difaaci ku gali lahaayeen ceergaabo ay ku soo codsan lahaayeen intay maamul goboleed ku noqon kari lahaayeen annana waxa weeyaan haddii baashu xaasidnimo tahay oo aanay intooda doonayaan inay Soomaaliland tusaan caalamka inaanay wax jiri kara ahayn annaguna dad aqabiya oo nacsiyaam inay intayada waa difaacanayna